السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وما سنتهين قلنا دوكيومنتري سميسة تياتر وقبنا شغاء ونكسن إنه قف كصوماليا هنكله دوني إنه خفصه سيد ونكسن دول كوسو بندقية مهد بالعرب بانو هي آد بنو مرعلني أنا عبد القادر عن هدان مانتا example كسوق هذا شركة إيجا فرنان لدمشان لو على سنة ويديننا جودا أنا وحبه ويدي وإلى شغلنا. إلى اللي مرة نقول إلى محل عند سكوجر لكن سيد هذا مرة إيمد بهرن نفس الميسر ويرادك الروح هو الميسر بس الشرف تلون إني عدو سؤال يسوي هكذا رجعني عبد الفتاح يسرت يفيز جرمانك عبد الناصر يشوفه الناس كمان إنه شغال السين. سأيجي جدا بحرة جوا نكسوم ناشونال إلكتريك كوربوريشن. aad baan ku faraxsanahay markii hore frontier baan kula joogay haddana codsi baan dirsaday codsiga way iga aqbaleen way shaqaaleysiiyeen waxaan joogaa xaruntan power generation plant-ga qolka control room-ka waxay iga qaateen engineer electric engineer mainkayga hadda qabto haddiisan jirin markaa shaqo gacanta laga qabanayo electrical waa qolka control room-ka ogaanaysid isu dheelitirka dabka kuu soo baxay يعني solar كاغا wind كاغا generators كاغا dabka soo dabka magaalada ka aad iyo dabka soo saaraysid si ay isugu burburd dhigaysid control room-keeda ba main judge-kayga hadda hawsha ugu badan oo la idiro waa intaas so alxamdulillah rabbil caalamiin Naxom National Electric Corporation mahad ballaaran baan waxaan uga hayaa marka hore inay shaqaaleysiiyeen oo codsigayga aqbaleen marka labaadna inay si wanaagsan ay soo dhaweeyeen mahad ballaaran oo la soo koobi karin baan uga hayaa aad baan ugu faraxsanahay shaqadan hayo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ahayn engineer volunteer aan ahay engineer shaqaynaya oo wuxuu bartay uga faa'iideynaya dalkiisa iyo dadkiisa iyo aniga naftayda mahad ballaaran baan uga hayaa hooyada iyo aabahay mahad ballaaran ay ka gaadho way ogolaaday inaan rajada iyo dreamka lahaa aan gaaro oo wax qabsado mahad ballaaran baan uga hayaa dadaalkeedii nooga muuqday inay qof dadaalaysa tahay iyo fursadda shirkadu u baahatay qof in la qaato ayaanu saciido ku shaqaaleynay hadeerna waxay ka mid tahay shaqaalaha neeg waxaan rajaynayaa inay ka soo baxdo booskeeda qof kasta oo la shaqaaleeya sida loo malaynayo boqolkiiba boqol marka koowaad inuu noqdana waa suurtagal inuu noqon waana taa marka waxay la qabtaa shaqaalaha guud ee shirkadaha u shaqeynaya laakiin ilaa hadda commitment-ga aan ka aragnay dadaalka aan ka aragnay iyo fahankeedu waa fiican yahay waa mahadsantihiin